هذا سبحانه أساسنا وحن أنا مركان يرى سومالي مركان صار نقطة وحن مسكحة كوهي باديه environment كيف عنا مركان تجي وحن ركار دولك يحالو في أو بأي دولك باهين مركان وحن ريد لو ما بحنين رمي جوا ده مقالة تجو سو قاچونية قاچة ده وحشو تذكر هذه environment كلا شقي environment كيبان مركان ساكو دورت تد كيبان هرتا awareness يسمى environment كا لأنه وحن كاني tools كي وحن كحر حرناي قبيونس بان دولكا كحرنا ماشي داتكو كسو مريي دولكي بيو كاللوميين دولكي سي ودولكو بيو أقلان أو عوسوكا صبحو بان براي انتا مركان براي اي شقيس داتكي مركو يو بيه هكذين دوحوين كان حق عثمان محمد كواوين يوان كسمين إلا هدا دولكو يسبدلي هدا وحلا اي شقيه بران إن دولكي أنا تقرأنا إنه عوسكو كل قيو مالا بدنا نكشقيني برينا مالا عين كاسو بدنا ما نكسو سمين مركا أساسا كبلا وحن بيوم بانو حنا يداتك برنا يسوي حرتان إلا هدر يقع حرتان وهدر كمان شقينا مالي يقع حرتان داتك دوحوش أنا وحن كسميني داتكي وحن سولار كوكرس بانشاين ككان سولار كوكرس بانو سيني solar kickers ku eventually ku feel garoon because gabdhaha Soomaalida wax kariya gabadha Soomaalida inay qorax joogto ma rabto wanaga feel garoon marka culture ka iyo baanan study garayn si fiican u study garayn laakiin not very well marka waxaan sameynay waxaan ummadii iyo dhuxusha ku gubay sheere baan isku diray oo u sheegnay nimankan waxay sameynay iyo reer baadii cawska u baahnaa reer baadii oo loo qaata iyagii فإسكو هريمادين رير بادي بان حوق بطي أول وحلا كيني جري صوتك لغا كيني جري تيمم بحوشة أقبا بلغا كيني جري ودرتا جرا حتى وحسمين جرين إربادي هيستنسون أيكم مرادان درتا وقيتكو قلاليو إلا أندتكم مركي وحكاش قيستان وحلا وحي أسورة قلني برانيا دانا وحن كنا جحني وحنو آدو قلنا جحني رير باديه iyo kuwa daaqsanayay xoolaha baanu niri dhageysta ma hadeer ma dhuxusha la galeysaan oo dhirta waa wada cunaysaan for humans hadeena cirka ka baxaysaan idinka ogmela aadisan mise waxa sameeynaysan dhulkana lahaansho sameeynaysan oo qabsanaysaan oo oranaysaan waayo markay ka guuraan bay shidayaan marka kama guuri kartaan waa ina cid ku reebtaan waayo nimankana idinka shidaya dhulka وحي بيده وان لا يابنين لكن فكرة بانسيسة فكرة دي بقاتين وين لا شقيان حدا واحد بحلشة هوايري هاي مقالوين هرتقاس كينا والا كان ان اولاد دولة اوغو سمينا يباع مشتركة والا كان قانينا ديه او لغا كان يمن iyo laga keenay imaraadka iyo meelaha baa la keenay warshad male hargeysa warshad la aan u tagnay iyaga naftoodu way keenaan waxaad qayb weyn ka qaatay mashruuca beerta timirta beeraha iyo durduri halka iga waran timirtaas waa fiican tahay aad iyo aad bay u fiican tahay ilaa kontoneeyo beerood baa ku yaalan malayn haddaanay ka badnayn kontoneeyda beerood waana la iibiyaa timirteeda waana la cunaa anigu ma iibiyo tayda sadaqan badi u baxsada laakiin dadku waa iibiyaan waana ku liibaaneen waaba barteen qof ma joogo durduri am timir beera markii waxaan ku bilownay markaanu reer miyiga ka shaqaynaynay ayaan durduri imi waxaan u keenay 12 geed oo timira waxaan reer walba daaradiisa ku beerto waysadana ku shubo 12 geed ba u baxay ay hadsadeen oo cuneen oo ku liibaan markaasay fahmeen dadna iyagu fahamsan baan u keenay ideerka dadna anaaba beertay markaan beertayna waa laygu dayday iskuulkii u horeeyay oo gabdha ma ahayn wiilal iyo gabdha ahayn laakiin dadkii najaxay gabdha u badnaa sida ay hadeerba u baahan yihiin meel kasta gabdha u badan tacliinta markay dhadhamiyaan gabdhuhu waa wiilka waxa dhib ku ah inuu tacliinta sii wado ma aqaan meel ku ordayo gabdhaha waxaan ku bilaabay brown baan horta funding waxaan siisay Canada Fund for Somalia 7 kun bayna siisay waxaan ku rehabilitate rural institute reer baadiyaha loo dhisay bariga waqtiga siyaad bar baanu ku rehabilitation ku sameeyay markaan sameeynayna dadkii ku jira qaxootiga ahaa baanu waxaan u dhisnay guryo u dhisnay 7 kun alla barakeeyay
reer walba guri baan u dhisnay 2 qola iyaga waxaanu baray sida guriga loo dhisto naagihii lahaa badii haween baa lahaa iyo caruurtoodii iyaga bad dhistay material kan u keenay iyo technician haddeerna meesha waxa la yidhaahaa Canada Village baa la yidhaha Brown bay ku taalo waa magaalo iska dhan markaanu saa samaynay gabdhihii iskuulkii soo gelin iyo wiilashii dibadday joogeen reerayo bay la joogeen gabdhuhuna gudahay ku jireen markii dambe guriga meeshii weynaatayna waa siinay in baan siinay wiilasha marka halkaasay ku najaxeen marka aniga iyo macallimiinka ahayn 2 kale markaanu meel fiican soo gaarsiinay baa waxaa college level ay noqdeen baa Brown waxaa laga furay Garowe waxaa laga furay college marka waxaan sameynay waxaan u tagnay nimankii reer Sanaag ahaayo meesha deganaayo ka shaqeynay oo dawladda iyo u shaqeynay waxaan nidhi kala qaata gabdhahan wiilashina waxaan nidhi gala dadka qaraabadiina u taga doonta meel gidarkana saaxda hadda rabta wiilashii waaba naga tageen qaarkood dabadday aadeen mabay sii wadwadin gabdhiiba aad ugu adkaystay dad baa markaas siiyay ma ahayn reer Sanaag qoriya xataa reer Garowe siiyay space guryahoodii ka siiyay gabdhii saasay ku dhamaystaan anaguna iskuulkaanu ka bixinayna markii dambena sanadkii ugu dambeeyay scholarship bay basiiyeen qoladii waxaan ku soo qadanayaa waxa jirtay gabadh gurigii aan anagu joognay oo ahaa odagay Cabdiraxmaan aabihiis lahaa oo hooyadiis way ahayd hooyadiis aayadiis joogtay ayaa gabadhan loo keenay gabadh ma rabo magaceeda inaan sheego ma ogi inay raali ka tahay baadiyaa laga keenay sababtoo lug bay ka gubatay marka reer baadiyaa safarka ma gaarin reer baadiyo inta waa kuwa socda waa la soo qaaday islaanta loo keenay gabadha hay baa la yiri nama raaci karto reer miyigii gabadhii bay haysatay gabadhu iska ma weyneyn 13 14 meelahaas ahayd gabadhii baa waxa ku adkaaday markay dhaawacanta yara dhutinayso conference ka xumaanaya oo laga soo dilay marka gabadhii because of conference xumaaday isku kalsoonidooda yara hoos jirtay waxay diiday inaan iskuulkii geeyo markaan imaado gurigaan ugu dhigi jiray ana u dhigdhigi jiray markii dam waxaan bas raac iskuul classka iska fadhiiso daawo oo isoo raac marka hadhow markay dhowr cisho raacdo aragtay gabdhihii qayrkeeda wax baranay si fiican u baranay way ogolaatay way gashay gabadhii waxaan ugu imi iyadoo horta diyaarad baan wada raacnay mar iyadoo UN ta u shaqeysay qolada u shaqeynaysa bixisuus UNDP baan u malaynayna oo Garowe ka shaqeysa ما شاء الله waa ku faraxsanay marka anigu waxaan maqlay inay reerkoodii aan reer baadiye aan moorahayn magaalo joogan ilaa intii wiila xataa ma guursamaan maqlay caruurtii oo dhan bay iskuul gelisay oo shaqeysaa wali way shaqeysaa UN ta u shaqeysaa ما شاء الله gabadhaas meel fiican bay gaartay marka iyada example baan kuwii kale oo iyagu conference ka lahaa markii bartay meel kastay ka shaqeeyaan UN ta NGOs meelaha ka shaqeeyaan badidood waxaan ku faraxsanay in badidood Soomaaliya ka shaqeeyaan qaar badan xamar bay joogaan ka shaqeeyaan dhowr iyaga kamid marka ma sha Allah gabdhahaas waa nijixeen faadba waxaad aad ugu qareentay gabdhuhu inay cod matalaada ku helaan dhinaca dawladda oo barnaamijyo badan aad soo qayb gashay hawsha ka waran political participation in laga qayb galiyo gabdhaha siyaasadda marka meelo badan baanu ka sameynay laakiin Puntland baa u badnayd Puntland baanu u ololeynay inaan ka samayno gabdhaha nidaaho 30% yeesha 30% ka marka la idin ogolaad leedintii hadda qaadataan lagu ogolaan mayo gabadh isma sharxi karo looma oranayo isa si sharaxa oo ka qaata moodan 30 waa leedin siya qabsada marka waa taad adigu ba naga caawinaysa marka waa tii Garowe muxuu ahaa 1 iyo 2 lagu ansixiyay ما شاء الله إن فاكت شقة أبدا أدا سمية أدا قولها إنه قصوا أنسحية ما شاء الله تي أنا وزارة هوين كمركة عاشق اللي تشوك تبان كونسلتنت وها عاشوا وحنكوه شيني إن 30% كلوكال كونسلز كلاقود درقيو إنه قبل هذان مركة مالي كلا إنه متجين لكن بدن راعي بدن وحن كأنسحية 30% كي مركة كأنسحية wasiirkii markaa joogayo gudahana waa joogayo waa raacayo waana raacayo waana la qabtay 30% ilaa maanta waa 30% baa socda bara
local councilku 30% waa gabdho waxaana kaaga daran mayor ku-xigeenku mar kasta waa gabadh mar kasta 30% ku ka yimaada because waxaan baray how do you do collective bargaining ninka qofka number 1 u sharxan mayorka waa la heshiinaysaa waxa kula heshiinaysaan number 2 inuu gabadh noqdo marka kula heshiisaan way daarsanaysaan vote ka siinaysaan isaguna vote ku idinsanay ilaa hadda sidii ku socotaa